Abaanduulihii ciidanka militariga gobolka Sanaag ee Somaliland gaashaanle dhexe Jamaal Maxamed ayaa ka goostay ciidanka Somaliland wuxuuna ku biiray koox uu hogaaminayo Colonel Caare oo isagana dhawaan ka goostay ciidanka Somaliland. Wasiirka gaashaandhigga Somaliland Ciise Axmed ayaa dhawaan sheegay in Colonel Caare uu wado jabhadeyn meel u dhow magaalada Qardho balse ka tirsan gobolka Sanaag. Goosashada sarkaalkan ayaa lagu sheegay culays kaga yimid beeshiisa oo ku qasabtay inuu ku biiro qorshaha uu wado Caare. Sarkaalkan Jamaal Maxamed oo ka mid ahaa saraakiisha kaydka ee ciidamada Somaliland ayaa dhawaan xilkaasi loo magacaabay kadib markuu xilka iska casilay Caare oo xilligan hogaaminaya abaabul iyo ururinta ka dhanka ah Somaliland kuwa oo sheegay inay raadinayaan Somaliland la wada leeyahay. gaashaanle dhexe Jamaal Maxamed ayaa u dhashay beesha Habar Yunis Muuse Ismaaciil gaar ahaan reer Cabdalle Maxamuud.